waalidiinta Soomaaliyeed hadday labo ka dhaafi lahaayeen caruurtooda ilmahooda hadday laba ka ilaalin lahaayeen wadankeenu nabad buu noqon lahaa muuqaalkan waalidiinta Soomaaliyeed iga gaarsiiya xaqiiq nabad buu noqon lahaa labadaas qodob hadday ka ilaalin lahaayeen waa hadda laba qodob oo marka la eego waalidiinta Soomaaliyeed caado u ah haddii laga dhaafi lahaa ilmaha lama arkeen waxyaabaha hadda jira ciyaal weero mooryaan tuugo ee wixii lamida maba la arkeenba cid taabata oo ku soo xadgudubta baba jirteenba waa laba qodob oo fudud mid kasta oo waalid noqdaana halkiis uu ka sii wado sababtoo asaga ayaa sida lagu soo barbaariyay qodobka koowaad waxa weeye habaarka ilmaha la habaaray haddaan ku qaldanahay waad qaban kartaa waalidiinta Soomaaliyeed ilmaha way habaaraan inaana qaldanayn waan dareemayaa sababtoo waxaan arkay waalid badan oo ilmahoodii inkaaraya waxa la yiraahdaa ilmuhu inta uu 10 sano ka yar yahay waxa uu jecel yahay waa ciyaarta inuu ciyaaro xilligaas ciyaarta uu ku jirana waa xilliga ugu dhibka badan ee waalidku ilmaha kala kulmo ilmuhuna waalidka kala kulmo Soomaalidu waxay ku maamaadaa ciyaalnimo ama caruurnimo waa cudur laga koro wax kalena ma ahane ciyaartaas iyo waxyaabahaas uu ku foogan yahay ayaa wax kasta ilowsiisa waalidkii ma yaqaan walaalkii ma yaqaan wax kasta oo dan u ah waxa uga muhiimsan ciyaartaas waalidku markuu guriga joogan cunugii chance looma siiyo in uu madax furasho dareemo oo madaxa uu furto oo uu ciyaaro oo bodboodo looma siiyo markuu banaanka inta u baxo iska hadaafo meelahaas tago ciyaal la soo ciyaaro dhax galo waa la soo raadiyaa markay raadinayso hooyadu cunugii ama abo cunugii raadinayo waxa la yaab leh in ay leedahay ama uu leeyahay inkaar qabihii aan dhalay maaragta inkaar qabihii hebel ahaa maaragta wax yar hadduu ka qaldo habaar baa inta jilbaha loola soo jabsadaa lagu rogayaa balaaya ku qaadi meel xun ka bax meel saana aad meel xun ka baxday waxa weeye dad waxay ku doodaan yiraahdaan meel xun ka baxdo meel xun ka soo baxaga aad maaha waa habaar meel xun ka baxday lagu yiraahdo meel xun ka baxday lagu yiraahdo habaar waa sida isla yaqaana ma loo eegaya meel xun ka soo bax maaha sida markaas laga wado meel xun ka baxay leedahay dhagaxa dhig ku shubal leeyahay maaragtay wax aan macquul ahayn baa lagu inkaaraya bal cunuga sidaas loo inkaaray caaqibkiisu muxuu noqonayaa haddaad aaminsan tahay waalidku cunugaaga haddii aad u duceysid ducada in la aqbalayo waa inaad aamintaa haddii aad inkaarto in inkaarkaas la aqbalayo oo meel xun ka baxinayo markaas cunugii markii inkaarkii lagu badiyo inkaarkii baa dhacaya de ilaahay baa aqbalaya markii ilaahay aqbalana cunugii wuxuu noqonayaa mooryaan dadka dila ciyaal weeru noqonaya wax kasta oo xun buu noqonaya balwad buu baranaya waa ka isaga oo markaa adiga cadaadiskaaga iyo qeyladaada iyo buuqaaga ka cararaya qodobkaas waalidka Soomaaliyeed ilmahooda ka dhaafaan habaarka ha laga dhaafo ilmaha haddaad aragto cunugaagu inuu qalloocan yahay u duca lagu toosin karaa habaarku waa sii qalloocinaya wax kale ma qodobkaas waa ka kan labaad waxa weeye yasmada ilmaha waa la yasaa waalidka Soomaaliyeed ilmahooda way yasaan cunugu xaq wuxuu u leeyahay afkaarta ku jirta markuu yar yahay inuu banaanka u soo saaro wax kasta oo uu sameyn lahaa inuu banaanka u soo saaro ayuu xaq u leeyahay laakiin waalidku ma ogolaado tusaale ahaan marka cunugu wax uu qaldo waxbuu qalday la oran maayo waxbaad qaladay waxan waa qaldan jireen mar dambe ha qaldin si tartiib loo oran maayo maxaa leeyahay ma wala wax gash ya awlaadan laga fiicnaa walba عقل مليهد وحوم وحاطة قشن إن لقوا دلو إن لقوا دلو وح كفي عناد بالقولي هنا لقوا دلين أي عنق مركب مسكحيس إرجاس كل عذا كور ولجيس وحسوسنا يا المها مركب لما ليدو والله ما يسو وح الله لا وح عنق ورهبه إنه كهذلو أنت اللي سود وياه بوح على راهي كهذل حدو بعنته ما حد يشيء جيسا ما أنا أقول تلاد بالليل هذا isdhaxgal baa leeyahay in cunuga lala saaxiibo la weydiiyo isaga dareenkiisa waxa uu qaba la weydiiyo cunugaaga aqoonso wuxuu yahay isagoo uu ku aqoonsanaya laakiin wax aan jirin hadad ka soo qaado wallahi adigana waxaan jirin ka soo qaadaya sida caadada waalidka Soomaaliyeed cunugu marka uu xiradooda ka baxo ay afkaartiisa dhageystaan been maaha inta uu joogo ma arkayso cunug yar inta waalidkiis aabis ama hooyis hortagay dhihi karaba aabasaasi wax u jiraanba hooyasaas wax u jiraan ma dhihi karaba naga aamus balle wax naga aamus qashiyo ma la dhageys hadaba labadaas qodob haday waalidku gartaan waxa xaqiiqo ah jiilka soo koraya oo soo kici doona oo dhan in ay noqonayaan dad maskaxdoodu ay furan tahay oo wax badan fahmi kara wax badanna qaban kara oo qaadan kara waxa xunna garan kara waxa wanaagsanna garan kara
hadday ilmo kuu joogaan alxamdulillah inta tiraahdi cunugaagana ha iska inkaarin hana yasina afkaartiisa dhageyso aad baad u mahadsantihiin waalidiinta Soomaaliyeed muuqaalka naga gaarsiiya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu abtiyo may maqashaa aad u weyn sharlaaw ilmahan soo dirayaaye hoy igu diyaari oo abtiyo macnaha ula jeeda sidee aad u keenin dalkii afar jir baa u yaraan ah alifna looma bilaabin ayam soo wallah oo mid aayad quraan ah akhriyaan la helaynin ayagoo jooga agtaada u dhigo dugsiga calaashan online oo sidee abtiyo ayagoon aadin banaanka oo aqalkooda dhex jooga macallin kuugu akhrinaya online kuugu dhigay ayaa kuugu diyaar ah Al-Sunna Institute macadka Al-Sunna oo qaab online wax looga barto adigoo dalka ama dibadda jooga waxyaalaha ka baran doonto waxa kamid ah barashada hikada barashada quraanka barashada xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam barashada ducooyinka iyo guud ahaan waxyaalaha ku tacalluqa shariicada islaamka Al-Sunna Institute wax ka baro adigoo jooga dalka ama dibadda kuna baro adigoo jooga gurigaaga wixii faahfaahinta dheeri kala xiriir lambarada iyo Gmail-da shashada ku qoran